Mohamed Salah oo macsalaameynaya saaxiibadii Vinicius Junior oo si lama filaan ah kusoo laabanaya. Jordan Henderson oo markii uu horeysay ka hadlay sababta uu uga tagay kooxda Liverpool saaxiib yaal soo dhawaado page filan oo dhaha ciyaaryahanka reer Brazil ee Vinicius Junior oo dhaawac uga maqnaa kooxdiisa labadii ciyaar ee la soo dhaafay ayaa hadda war cusub ka soo baxay. Real Madrid ayaa hore loogu sheegay in aan heli doonin Vinicius Junior ilaa laga gaarayo dhamaadka bisha October, waxaana waliba loogu daray shaki ah in suuragal tahay inuu ka maqnaado muddo intaa ka badan 6 toddobaad ayay ahayd muddadii hore loogu qabtay. hase yeeshee wargeyska Marca ayaa ku waramay inuu ka soo horeyn karo muddadaas oo 4 isbuuc gudaheed ku soo laaban karo. Vinicius ayaa la sheegay inuu bilaabay tababarka fudud isagoo isku diyaarinaya kulanka derby Madrid Atletico Madrid 24 bishan. la yaab ma noqon doonto haddii Vinicius Junior ka soo kabto dhaawaca waqtiga hore sababtoo ah marxadiisii hore oo tam u ahaa dhaawaca ayaa caawinaya. kabtankii hore ee kooxda Liverpool Jordan Henderson ayaa markii uu horeysay shaaciyay sababta uga tagay kooxdiisa hore, wuxuuna eedeeyay tababara Jurgen Klopp oo ku tilmaamay inuu muujiyay dareen ah inuusan doonayn kooxda inuu sii joogo. Jordan Henderson ayaa kooxda Al-Ittifaq ka qaatay isbuucii 700 oo gini. Henderson oo wax laga weydiiyay ka tagitaanka Liverpool ayaa yiri, aniga xiriir fiican ayaan u lahayn Jordan, daacan way ahaa tafaasiil badan kama bixinayo wixii aan ku wada hadalnay sababtoo ah gaar ay noo ahaayeen, laakiin haddii aan idin tilmaamo halkii aan ka taagnaa waxaan ogaa in aanu in badan ciyaari doonin. waxaan ogaa in ciyaartoy badan oo booskayga ah imaan doonaan kooxda haddii aan ciyaarayna qof walba uu garanayaa, khaasatan tababaraha oo aan dhibaato ku noqon lahaa maadaama aan kooxda muddo dheer soo joogay waqti badanna aan u soo ahaa kabtan. wariyaha ayaa su'aal weydiiyay isagoo markaa dhahay kooxdaada ma isku dayday inay ku celiso oo kugu qanciso inaad joogto kooxda. waxa uu ku jawaabay, tababaraha iyo maamulka kooxda ima imaanin oo ima sheegin inay doonayaan inaan sii joogo kooxda, waxaan ogaa inaan ciyaari doonin, sidaas darteed ayaan go'aansaday inaan kooxda ka tago. kooxda reer Sacuudi ayaa sar u qaaday qiimihii ay ku doonaysay Mohamed Salah. Al-Ittihad oo hore ula wareegtay ciyaartoy badan oo ku jira Karim Benzema, Fabinho iyo Kante iyo ciyaartoy badan ayaa markaan ku adkaysanaysa in la soo wareegto Mohamed Salah oo hore dalab 170 milyan ka soo gudbisay. Al-Ittihad ayaa hadda la sheegay in lacag gaarsiisay 215 milyan, taasoo Salah ka dhigaysa kii ugu qaalisanaa kubadda cagta haddii lacagtaas laga baxsho. tababaraha Liverpool ayaa milkiilayaasha kooxda u sheegay inaysan gadi karin Mohamed Salah, balse uma eka arrinka mid ay yeeleen maadaama marka ay lacagtu tahay mid xad dhaaf ah oo ay Janis u arkaan. mas'uuliyiin ka socota kooxda Al-Ittihad ayaa gaaray magaalada London si ay u dhameeyaan arrinta Mohamed Salah ayuu u sii gudbaya magaalada Liverpool. Mohamed Salah haddii uu ku biiro kooxda Al-Ittihad wuxuu noqon doonaa ninka ugu mushaarka badan kubadda cagta, wuxuuna isbuucii qaadan doonaa 2.45 milyan oo gin isbuucii. Salah ayaa Liverpool ku soo biiray 2017 isagoo markaa taariikh ka dhigay kooxda Liverpool isagoo markaa u saftay 309 kulan. saaxiib bilaa fiidiyowga intaas ayuu nagu ogyahay. noo share gareeyo asxaabtiin la wadaaga aad ama santiin.